ما بالله بسم الله الرحمن الرحيم أنا كل شغلين ما كجرنا أو نبض قبنا حدود إلى جيجا أو دحدين نبجرو جرين ما أنت مركان توصل أرورتم با مكلاكيا نوقف سدي أو زو وتو واحد وتو قري وتو إنفنتري أو ورالدي واحد لنا أي لقب سدينه دقاكين ميل جوجا با جيجا ميل كستا قب سدين سبب من قرنين أو دبات تجرين هيك من قصة أسرار أنك وجوهنا واحد كل سبب كانوا داعي عن قرنين وأنا لقب سدين عاد ما دحتوين كنفتو والو ويراري والو حريري ما دحين ميل استغنية مقرنين تاسا كل إنان كل ما حنقرها عن قد بيان دوني شعب كينا وقعدوا بس شعب كينا وقعدان ساعدنا كل واحد استغنى يبقرني تاسا قاعدين سوجديني يعني waxaan ku sugannahay xaalad adag oo loo baahan yahay shacabka iyagu inuu maanta dadnimadiisa cadeeyo Itoobiya maanta waa qowmiyado inay qowmiyadi caawayna qabsato iyadoo awalba tulli soo maraysay waa ayaan daro iyo dhimasho ummadda Soomaalida ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan jigjiga waxaan leeyahay xoogga militariga soo galay xoog inaga saara istifaac baan u baahanahay ka kacaan idin leeyahay ka kaca بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku sugannahay magaalada jigjiga gaar ahaan xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya annaga oo nabad qabna oo seexanay ayaa saaka waxaan ku waabarisanay ciidamo aad u tiro badan oo gaashaaman oo lagu soo shubay magaalada jigjiga guud ahaan xarumaha dawladda madaxtooyada xarunta xisbiga iyo dhammaanba goobaha mataqaanaa shacabka ay ka adeegtaan intaba waxa dhibaatooyin iyo hagadaamooyin aad u fara badan ay ku hayaan waa shacabka madaxweynihii iyo mas'uuliyiintii ugu sarreysay deegaanka hadda xaalad ay ku sugan yihiin ma garanayno waxa weeyaan madaxtooyadii waxaa isku weeray ciidan aad u tiro badan xaaladda in ay dileen inay mataqaanaa afduubeen iyo waxay hadda xilliga madaxweynihii ku sugan yihiin ma ogin taasina waxa ay mataqaanaa jabinaysaa nidaamkii federalismka constitutionkii waddanka u yaallay shuruucdii dalka u taallay waxaana sameynaya waa dowladda federaalka ugu horreeya ra'iisul wasaaraha waddanka marka waxaan leenahay dadka shacabka ee Soomaalida Itoobiya waa qoomiyado waxaan nahay qoomiyada Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ha loo istaago midnimadeena ha loo istaago mataqaana isku duubnideena ha loo istaago sidii loo difaacan lahaa waddankeena iyo sharafteena iyo karaamadeenna cid kastoo inagu soo xadgudbaysana maanta waxaan haysanaa chance in laynoo adoonsado ma sidii awal laynoo adoonsanayay in laynoo dhibaateeyo sidii awal laynoo dhibaateynayay ma aha haddaan qadiyadeena iyo sharafteena maanta difaaci weynana inaan dayuusin doofaaro aan noqonayno ayaa ka cad marka waxaan u baaqayaa dhammaan dadka Soomaalida ee dunida daafeeda joogana in arrinta la socdaan in laga dhiidiyo in cid kasta mataqaana dareenka wadaniga ay muujiso isla markaas si degdeg ah hawsha wax looga qabto wabillahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya xarunta xisbiga saaka deegaankeena Soomaalida Itoobiya aroortii waxaan ku waabarisanay iyadoo kaare iyo beebe iyo ciidan xoog badan ku wareegsan yahay ciidanka wax loogu wareejiyay wax loo keenana ma garanayno kor baana laga qabsaday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dawlad deegaan buu ahaa Soomaalida Itoobiya dalka Itoobiyana wuxuu ku dhisnaa federalismka dalka Itoobiya uu ku dhisnaa qoomiyad dalka Itoobiya kamid ayaanu nahay federaalkuna wuu noo dhaxeeyay marka maadaama dastuurka dalka Itoobiya ay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku dhisnay dastuurkii Itoobiya waa la jabiyay in la jabiyayna waanu arkaynay anagu waayeen oo dhan laakiin waxaanu isnaynay ninkoo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dastuurkii ininku aad asaxiseen ha u horjabinina qoomiyad baan ugu soo duushay ra'iisul wasaarihii dalka Abiy qoomiyad buu noqday lama nagu soo duulay meel walba ciidankii Oromo iyo ciidankii federaalka ayaa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta haysta madaxweynihiina meel ku sugan yahay war uma hayno shacabkiina meel walba wuu kacay shacabki waa la leynayaa marka Soomaaliya ay dunida daafaheeda meel kasta joogtaan maanta waxay maraysaa qadiyad maanta haday inagoo Soomaali ah ay Oromo ina qabsato wax qadiyada iyo wax sharaf ah oo inoo haray ma jiro madaxweynaheena dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiyana maanta meel ku sugan yahay cid war u haysan ma jirto waxaa laga xun yahay shidaalkii inoo soo baxay baa laga xun yahay
waxaa laga xun yahay horumarkaynu gaadhnay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay dadkeena waxbartay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay qaabkaan isku maamulayna laga xun yahay nin kasta oo Soomaali ah oo wax qabayo waxaad qabtay dib intaad u dhigato waa inaad maanta dhiigu ku kaco oo dowlad deegaankii Soomaalida Itoobiya waa artan in la qabsaday milyan xataa ku haysto waa inaad milyan xar aad ku hadashaan oo in la qabsaday ogaataan wixii inta ka dambeeyana saacad daqiiqad wixii soo kordhayaan in la socodsiinayna aad bay u mahadsan yihiin saaxiibaday sida ay sheegeen waxa weeye saaka oo ah maalin sabtiya waxa weeye mataqaan waxaan ku suganahay xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee Itoobiya waxaanu halkan u fadhinaa mas'uuliyiintii deegaanka golihii dhexe ee Soomaalida dhammaan goobihii muhiimka ahaa ciidamo waxa weeye mataqaan dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya deegaanka min mooyaane ilaa iyo dawalle xuduudda waxa weeye mataqaan ku hareeraysan sugayay buu ahaa waxa weeye mataqaan anagu isma aanan lahayn cadow dalka ayaa tihiin waxa weeye eraya fara badan oo waxa weeye mataqaan kicinaya shacabkanaga oo second citizen laga dhigayo ayaa waayaha ra'iisul wasaaraha dalka afkiisa uu ka sheegay waxa kamid ahaa waxa weeye hadal uu sheegay oo uu soo galiyay eray ah Soomaaliya Ethiopia which means Soomaalida iyo Ethiopia waxa weeye mataqaan anagu ah dowladda deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia waxa weeye mataqaan waxa maaragtay waxa weeye mataqaan kale oo waxa weeye mataqaan uu ka hadlay toddobaadkan gudihiisa arrimo ku saabsan natural resources-ka deegaanka shidaalka oo uu yiri 5 daqiiq waxa weeye 5% ayay ku yeelanayaan dadka laga helay which is wrong taas ayay shacabkanaga ka kaceen taas ayaa social media ku jirtay toddobaadkan isagoo taa maxaan ku raday waxa weeye mataqaan sabab ka dhiganaya ayuu waxa weeye saaka waxa weeye mataqaan 5% looga hadlayaa iyo shacabkii ku leynaya xabaday hadda ridayaan baa leeydi inay dad dhinteen inay waxa weeye dhaawacmeen waan idin soo sheegi doonaa laakiin anagu sharcigi baan wari taaganahay hig mingistigi baan taaganahay waxa weeye hal talaabo oo sharciga jabinaysana inaan ku dhaqaaqno waxa naga hor istaagay madaxweynahanagii iyo mas'uuliyiintanadii waxa weeye marka ilaa hadda sharcigan ilaalinayna waxaan u sheegaynaa qoomiyadda wadanka qabsatay inay waxa weeye sharciga ilaaliso waxa weeye dal wakiil kama noqon karaan waxa weeye si qoomiyadeed bay noola dagaalamayaan intayna wadanka qabsanin iyaga waanu islaynay waanu isku dhacnay waxaan islahayn laakiin markay wadanka qabsadaan waxa weeye dhibaatadii jirtay way xalinayaan dagaal ciidan ayaa ku socday qoomiyadda Soomaalida 5 bilood ee ugu dambeysay kumanaan ayaa mooyaane ku dhimatay kumanaan ayaa tulli ku dhimatay kumanaan ayaa baabili ku dhimatay ilaa hadda shacabkanaga anaga waxay nagu dhaliinayeen ciidan baa dagaalamaya maxaa u dagaalami laadihiin ciidan baa dagaalamaya maxaa u dagaalami laadihiin waxa weeye ilaa hadda madaxweynahanagii baa naga hortaagnaa haddana waxaan ka codsanaynaa waxa weeye mataqaanaa in la fasaxo waxa weeye mataqaanaa ciidanka deegaanka iyo shacabka deegaanka oo waxa weeye la iska celiyo cadawga qabiilka ee nagu soo duulay waxaan rabnaa maanta laga bilaabo inaan u helino shacabkanaga la gumaadayay waxa weeye uma dulqaadan karra cadow shisheeyaan iska ilaalinaynay cadow qabiil baa maxaa nagu soo duulay dhammaan ciidanka maanta jigjiga la wareegayna waa oromo waa qoomiyad ma aha ciidankii federaalka waxa weeye ciidankii federaalka ee qumana arrintaa way ka soo hor istaageen saan xogta ku hayno waa ciidan qoomiyadeed weeye marka waxa weeye shacabka waxaan leenahay difaacda wadankiina difaacda horumarka difaacda maamulkiina taageera waxa weeye kuwa waxa weeye Soomaali isku sheega ee waxa weeye mataqaanaa dadka waxa sameynaya la soo safarayana war shay on you baan leenahay isku xishooda isqanjiriya dhiig iska baara waxa weeye hawsha halka way ka weyn tahay saaka halka way ka weyn tahay maxaan ku leeyahay deegaankiina difaacda heego deegaankeeda ha difaacato intaas ku soo doobay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kasta joogo dal iyo dibadba saaka waxaan ku soo nahay xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxaan u dhannahay dhammaan mas'uuliyiinta deegaanka oo maxaan ku ugu horeeyaa afayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Maxamed Rashiid Isaaq iyo madaxda xarunta dhexe iyo dhammaan kabanay waxaan halkan ka cadeynaynaa ma saaka aroortii inuu deegaanka Soomaalida ku waabaristay ciidan mataqaana wata amarka ra'iisul wasaaraha kaasoo maxaan ku dhahay uu saldhigiisu yahay inuu qabsado deegaanka Soomaalida Itoobiya sida awalba ay ku taamayeen himiladoodu ahayd in mataqaana kaliya wadanka Itoobiya uu noqdo Oromo
dhawaanto maxaa ku waxaan xasuusanaa dagaal adag oo mataqaanaa labada shacab dhexdooda ka dhacay oo ay xaggooda iyagu ciidanka iyo oromadu waday in mataqaanaa dhibaatadii ka dhex dhacday inay revenge wadaan waxaan wadnaa madaxweynaha cabdi maxamuud cumar sababta lagu haysto ee loo raadinayo inay tahay dhulkiisa uu difaacay shacabkiisa uu difaacay ee uu horumariyey iyo dastuurka dalka uu ilaaliyey inay tahay baan ognahay waxaan u sheegaynaa cid walba ay khusayso inaanaan ahayn dad la muquunin karo nalama muquunin karo keliya dastuur baa lagu wada joogi karaa maxaan ku rahay hal mar hal daqiiqo inta aanu nool lahayn dadkooda dalkooda iyo maxaan ku rahay diintooda waxaana lagu qasbayaa inaan oromowno waxaana lagu qasbayaa abaagadheeygu inuu noo taliyo waxaana lagu qasbayaa in mataqaanaa shacab resourciganaga iyo deegaankanaga iyo dhulkanaga la qaato taana dhimashaan ka xignaa maantaan ka xignaa barri baan ka xignaa cidda aaminsan inayna maquunin karto maxaan ku rahay abi waxaan leeyahay abiow adigiyo lama iyo maxaan ku rahay qeero iyo onag qeero inay yihiin inay onag yihiin onagtii xuduudda ka soo gashay inay yihiin inay jawharka amar qaadanayaan baan ognahay shacabkiiyo dhallinyarta waxaan u sheegaynaa iska celiya meeshaad ku aragtaanba dhagax tuura xabadkii haysta xabad iskaga celiya iska celiyaan idin leenahay madaxweynihii meelu ku sugan yahay ma ogin xaruntii maxaan ku rahay madaxtooyada waa la qabsaday dowlad deegaanka waa la qabsaday laakiin taasi ooma suurtoobayso meeshu jooga waa soo qabanaynaa cidda haysatana maxaan ku rahay xabad baan madaxa kala dhacaynaa wey بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku sugannahay xarunta xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya Itoobiya waxa weeyaan waxaan ku sugannahay waxaan ku fadhinaa muxuu ahaayay hogaamintii deegaanka intii badnayd waxa weeyaan saaka markuu waagu bariyay 12 subaxnimo waxay shacabka anagu iyo ardaydii iyo shaqooyinka caadiga waxoo labato lagu waabaristay ciidamo federaala oo waliba aan xaqiijinay inay Oromo kaliya yihiin oo ciidamadii nadiifta ah ee Itoobiya aysan ahayn ayagoo oo dantan ka duuliyana ay tahay nidaamka anaga inay burburiyaan in ay Soomaalida Oromo ay u bedelaan haddii ay Oromo u bedelaanna ay macnaha doonayaan inay khayraadka anaga iyo dalka anaga iyo dahabka anaga iyo shidaalka anaga inay qaataan taa marka waxaan leenahay cid walbana u sheegaynaa ma suurtagelayso mana yeelayno dhibaatooyinka ugu waaweyn saakan waxaa ka mid ah in dhammaan xarumihii dowladda iyo muxuu ahaay hoolashii iyo madaxtooyadii zoo iyo ciidan lagu wareejiyey isla markaana ilaa hadda alaankan madaxtooyadii iyo madaxweynihii meel ay ku sugan yihiin aan garanaynin waa arrin la yaab leh federaalkana waana uu noo dhexeeyey dastuurkana waan aaminsanayn laakiin waxay rabaan dastuurka inaan jabinno inaan ka dhaqaajinno oon anaga go-aanka anaga qaadano ayay doonayaan waxaana reebayna nagu qasbayaan cid walbana waxaan u sheegaynaa bulshadeenada iyo shacabkaanaga hadday dal tahay hadday dibad tahay inay iska celiyaan mana yeelayno oromana ma noqonayno nidaamkaana ma qaadanayno ciddii wax ka basan nidaamka la timaadana madaxaan ka jarayna waa leeyahay aad u mahadsantihiin bismillah waxaan ku sugannahay xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya say hore saaxiibada ugu shanqariyeen waxaa ka dhacday saaki lagu waagbarigstay ciidan dabaabado wata qoryo wata sugug wata oo ka soo galay meel ay ka socdaan meel ay socdaan la garanayna laakiin isaan leenahay waxa soo diray waxa weeye abi amarka soo bixiyay lama magarsa amarka soo bixiyay jawhar amarka soo bixiyay onaga dhow wadanka qabsatay saaka taxadarkan jigjiga waxa wadanka qabsaday onaga haysata gacanta ku haysata waxaan leenahay shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya iyo shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay hal iska celiyo onagta hal iska celiyo oromaha hal iska celiyo ciidanku waa oromaha wadata oromaha masuul wadanka qabata waxaan ugu qasba oromanimana ugu qasba afka oroma ku hadla oromaha intalisa abaagadaha intaliyo lama hayn maamulo yaa lagu qasbaya ma yeelayno ilaa qaf nafta ay naga baxayso kan ugu dambeeya nafta ka baxayo ma yeelayno waa tuug dhalay hal iska celiyo oo meel walba laga howlgala oo hal dhagax tuuro oo naftiina u huro oo wadankiina wadannimada عدة دقائق ويدا وديوسوا وصوماليا وساك ديجيدا دقائق ويدا وإسكعلي ويدا ومال إسكسار ويدا وديوس هل إسكعلي ورمضان هل إسكعلي وحوي إسكتوبنا وحوي بيكوي ماضيان فرانا هني من مدينا وحوي من مدى صوماليا لقى شقية ودن مدى لقى شقية ديجينا وحوي هاللهور نفي مال هاللهور هل إسكعلي ورمضان مال الله ما يسكوارك تان هل إسكعلي مال ساعات هل إسكسار waxaan leenahay wax wadanka ma weeraraya waa onaga weeraraysa onagana qabsatay oromana qabsatay abaagadana qabsaday ma yeelayno nafta wax way lagu reeyna aad iyo aad ma sandeed dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya saaka aroortii waxaan ku waabarisanay in afgamin lagu qabsado kilalkanay
si cad baa afgabin loogu qabsaday constitutionka wax ka baxsan mana lagu sameeyey sabab male xukuumaddan iyo xisbigan iyagoo nooyeen baa afgabin lagu qabsaday madaxweynahanagii xeradiisii baa la weeraray ilaa haddana wuxuu ku suganaa warkayn Ethiopia federalism baa ahayd laakiin si cad baa anaga loo qabsaday si cad sharciga lagu tuntay abiy baa ku tuntay lama ku tuntay si cad baa loo qabsaday oo ka madax banaan constitutionka Ethiopia lagu hagayo ka madax banaan waxaa la qabsaday waxaana soo weeraray oo cad dagaalkiina dhex maray Oromia ee dadka naga lagu leenayo ilaa hadda maanta khayraadkan lahayn la rabay la qaato shacabkanagii oo maalin kasta la leenayo waxaana loogu daray maanta in dhammaan awoodii xukuumadda la qabsado waa wax cad weeyaan maanta jijigan dhammaan meel kastoo taagto oral baa taagan meel kastoo taagtan oonaag baa wadata xaruntii madaxtooyada la weeraray wuxuu madaxweynaha ku sugaya war kama hayno shacabka deegaanka waxaa leeyahay waxaa weeyaan in badan baan aamusnayn oonu islahayn dowladdan hadday mar timid isbeddelkan la jaan qaada waxyaabaha mataqaanaa khilaafkeeda dhex mara idinkii Oromia ha la xaliyo laakiin in madaxweynahanagii la dilo loo hanjabo waa lagu dili la dhaho mar kasta isla markaana maanta la soo weeraro yay noqotay waxaan leeyahay iska halgama la dagaalama marna hoos fadhiisan mayno Oromo walaalana hoos fadhiisanin shacabkana waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan ba dhiidhiya ka halgama oo mataqaanaa iska saara mana ogolanayno in la baabiyo constitutionkan sharci baan u leenahay xaq baan u leenahay deegaan baan nahay dowlad baan nahay baarlamaan baan leenahay xukuumad jirtaan nahay sharcin annagana faragelin karana ma jiro constitution faragelin mataqaanaa wax awood lagu faragelin karana ma jirto madaxweynahanagii laakiin maanta iyo xukuumaddanadiiba in afgambi cad lagu sameeyo waa cad sidaas darteed shacabkeenna waxaan leeyahay mar kasta in ay dagaal ay la galaan oo ay iska celiyaan cid kasta oo duulimaad ku ah systemkooda cid kasta qeero Addis Ababa Minnesota markuu joogo wuxuu ku hadlayay walaalkay Addis Ababa dhexdeeda ku hadlayay walaalkay mar kastana wuxuu ku hameeyay inuu deegaanka Soomaalida oo nabad maanta ahaana deegaanka ugu nabad badan deegaanada Ethiopia oo ayna wax dhibi ka jirin caasimadeeda iyo deegaanadeeda oo nabada horumarkii oo saxawle oo socda nabadii oo saxawle oo socota shaqaalihii xafiisyada dowladda si cad u socda maanta in lagu waabaristo xerad kasta oo ciidan xafiis kasta in la hordhigo gaari xeradii mataqaanaa madaxtooyada la hordhigo anagii mas-uuliyiinta hadda laftigeeda hadda meel aan mataqaanaa aanu meel isku soo ururnay weyaan xaaladdanada sidaas darteed shacabkanaga waxaan leeyahay in badan baadna aamusnayd oo lahaydeen maxay u aamusan yihiin oodna dhaliilayseen ood lahaydeen nimankan dagaalkana lagu hayee cad ee dadkanaga la leynayo maxaad u aamusantihin laakiin annagiiba maanta lagu daray annagiiba lagu daray oona la soo weeraray oo aan lagu haystaa on maxaad wax mataqaanaa marka taas in shacabkanagu uu ka halgamo yaa soo jeeda laad maasantihin بسم الله الرحمن الرحيم ساك مركو واو بريسay Oromo iyo onag oo iswaata tijiga soo galay abiyana soo diray constitutionka iyo sharciga iyo dastuurka leeyahay ee dalka walahan uu burburiyay si la haliyana waan iska celinayna kana gaban mayno qof yar iyo qof weyn iyo dumar rag iyo haweenba dhammaan shacabka deegaanka Soomaaliya Ethiopia rag mucaarad iyo maxaafidba saaka waa inaynu Oromo iska celinaa aan ka saarno qoomiyad lamidana nahay dalka waa dalkeeni waa deegaankeeni ilaa awaash baynu lahayn انت درتين سيده درادين اورما iyo Soomaali waa la siqanay maanta macal Addis Ababa gudaheeda inaan qabsano waan qabsan karnaa uraaladan ay halka keenan iyo suuqyadana waan ka saaraynaa dhalinyaradan hadda dhagax kaga saartay dhagaxaan intaan kaga saarno waan ku difaacnayna Oromana ma doonayno namana qabsan karto luuqadeedana numa khasbi karto shidaalkanaga ma qaadan karto khayraadkanaga ma qaadan karto annaga u nool annaga u joogno annaga u dhimanayna sida darteed dhammaan shacabka xaafadaha jooga iyo kuwa degmooyinka jooga iyo kuwa tuulo jooga dhammaantiinba iyo dhammaan caalamka dhan adduun weynaha waxaan ka codsanaynaa in si toos ah soo galo dhammaan in la yiraahdo maanta Soomaaliya Ethiopia anaga oo Soomaali waan ahaynde hadii Soomaaliya la raacin oo walaaladana mana diidan ayagana nala difaaci jiray shalay maanta nala difaacay isagana filin ilaa mooyaale ya ilaa maxaan ku dhahay waxa inta u dhaxaysa ya ilaa iyo booq iyo galaadi ilaa oo u sheegayna in Oromana soo weertay abiya waa Oromo lamu waa Oromo ciidan kala kay Oromo haysta uu ka wada qaado tirayga uu joogay iyo maxaan ku dhahay qoomiyadii kale to Oromo huwan caalamka federal